السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxay ogaatay mid ka mid ah macluumaadka kadib markay u wareegtay madaraso ibtidaa'i ah oo khaas ah in ardayda fasalka ay isdagaalaan badanaa uusan jirin wax jacayl ah dhexdooda siday u badan yihiin. waxay uga sheekaysay muhiimadda qalbi furnaanta iyo cuqdad la'aanta. waxay kaloo u sheegtay in qofka qalbi wanaagsan leh kana hufan khiyaano cuqdad iyo naceeb uu ku guulaysanayo jacaylka alle iyo midka dadka. laakiin waxay ogaatay in ardayda badankooda aysan fahmin waxay ka hadlayso. waxay u go'aamisay ciyaar soconayso muddo isbuuc ah waxayna ka dalbatay arday walba inuu keensado kiis barandho ah mid walbana uu ku dul qoro magaca qofka uu necab yahay. arday walba wuxuu keensaday kiis barandho ah wuxuuna ku dul qoray magaca qofka uu necab yahay. qaar waxay keensadeen 2 kuwa kalena 3 qaar kalena waxay keensadeen 5. kadib macallimadii ayaa u sheegtay shuruudda ciyaarta waana in muddo isbuuc ah aysan dhigin kiiska barandhada ah meel walba ay tagaanna ay sitaan. dhowr maalin kadib ardayda waxay dareemeen ur ka soo baxayo kiiska barandhada ah ay wataan. sidoo kale waxay dareemeen culayska ay leedahay. isbuucii ayaa u dhammaaday aad ayayna u farxeen maadaama ay u dhammaatay ciyaartii. macallimadda ayaa weydiisay dareenkooda ku aadan kiiska barandhada ah ay wateen muddadii isbuuca ahayd. waxayna wada dhaheen waan ku dhibtoonnay waxayna lahayd ur sidoo kale way cusleed. macallimaddii waxay u bilowday inay u sharaxdo hadafka ay ka lahayd ciyaarta waxayna ku tiri kiiskan urayo eed aad wadateen culayskan idinku hayay waa waxaan qofka uun qalbigiisa ku haysto markii uun qof cuqdad u hayo waana wax aad la tegaysid meel walbo aad tagto. haddii aad awoodi weyseen inaad wadaan kiis barandho ah isbuuc kaliya idinkoo dhibsaday urka ka soo baxayo iyo culayskiisa ka warrama naceebka iyo cuqdadda aad ku haysataan quluubtiinna inta aad nooshihiin. kadib ayay ku dul akhrisay hay-adahan walaa tukhzinii yowma yubcahuun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. maalinkaas laga bilaabo ardaydii way isjeclaadeen waxayna ku raaxaysteen quluub isufiyow. fadlan haddaydan cajib gelisay qisadan like saara ku soo biiro subscribe dhaha janaalkeena bishaar action aad ayaad u mahadsantihiin. لله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.